wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ayaa dib ugu laabtay goor dhaweyd magaalada Islamabad. ninkan wacdarihii shalay uu ka dhigay meesha Mareykanka sida uu u galay maanta haddana mar kale u tagay. waxaa lagu soo dhaweeyay saldhig ciidamada cirka ay leeyihiin ayaa lagu soo dhaweeyay Pakistan. intii uu soo socday uu safarka soo ahaa waxa telefoonno loo diray wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga, wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska, wasiirka arrimaha dibadda Turkiga. qab hadaa isku yeesho qabkaagu aad aniga waxbaan ahay aad tiraado waxa waa dadkii oo dhan waa ku imaanayaan. laakiin maalinkii ugu horreeyay wada hadalka imaada markii la yiraahdo ay tageen Mareykan wuxuu yiri okay haday dhihi lahaayeen dad dulaysan ay noqon lahaayeen. laakiin Mareykan waxay kaama yeeleen adeer waxaan rabta la imaw waxaan rabnaa la imaanaynaa miiska adna waxaan rabta la imaw dad heshiis gaaray aan noqon. laakiin inaad adigu wax ii yeeriso waxa samee kaama yeelay waa ku weeraraya waxaan rabta la imaw adeer weerarka laftirkiisa keen nimankii marka waa laga baqay. hadda adduunkii oo dhan Iran la baryaya waxa leeyahay bal wax ogolaada oo maaragtay arinka hal la dabciyo dagaal yaan lagu laabanino ali wasiirka arrimaha dibadda sida loo soo dhaweynaa Pakistan markuu tago yaabay markuu ka degay wuxuu yiri wax yaraan haystaa Moscow u duulaya Ruushkan u socdaa wixii akhbaarada iyo wixii wada hadallada ku saabsan iyo aan ka wada hadal rag dhalay waay. marka waa kaas haddaba marka arday tusoo wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera waxay leedahay warbixino laga helay dhanka Pakistan oo telefishinka Al Jazeera soo gaaray wuxuu sheegayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iran inuu tagay saldhigga la yiraahdo Noor Khan ee militariga ay leeyihiin meel ku dhow magaalada Islamabad. haddaba Al Jazeera waxay leedahay wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi ayaa tagay saldhiggaasi Islamabad ku yaala markii goor dhaweyd uu ku laabtay Pakistan uu ku laabtay. wax yaraan haystaalis kale Moscow u socdaa nimankii wixii aan rabnay ma ka soo jawaabeen Mareykanka. waqtigaas la fariisanayna markay noo ogolaadaan ayaga iyo annaga inaan miis wada fariisan karno nin walbana danihiisa ka hadli karo. laakiin aniga ma jirtaan odaga waa wareersan yahay Trump wax badan asaga ka dhaxay xasan wallahi nimanka Iiraaniyada raga waay. marka hawshaas halkaas maraysa. sheekada kale oo xiisaha leh ee la soo ogaaday waxa la leeyahay xog rasmi ah la soo helay ilaa ninka Trump la leeyahay meel cidlaa ma iskaga aamusna wada hadalaa rabaa ku waashay. waxaan leeyahay ninkan dagaalka ma tuusan bilaaban ba dagaalan u socdaa waa hanjabaya ku hay hadda muxuu wada hadalka ugu socdaa waa nin dhagaha laga soo garaacay. waxaa meeshan ku qoran 24 diyaaradood in laga riday ayaa la soo ogaaday xog qarsoodi oo la helay oo Mareykanka 24 diyaaradood in looga soo riday dagaalkii Iran oo Iran ay ka soo riday oo midiiba ay joogto lacag ku dhow 3 milyan oo dollar. odagu marka maasha gadaal u gurtay dagaal ka cabsaday ilaa beesha waxba ku jira. Trump oo chance ama fursad kugu hela wuu kugu durdurina wuuna kugu isfootayna. muxuu marayaa maanta ninkii xabadda isoo qaatay idili lahaa xataa Iran shaqa ku malahan awalna wax kasta Iran u saarin jiray. markii uu kibirsanaa doorashada soo sharaxay Iran ka dambeysay kan dhagtayga dhaawacay waxa soo dhahay meeshan adeerayaalo haddaad wax iska dhiciso waa lagu ixtiraamayaa sida Iran waxa u xiran marinbiyood dara u xiran. waxa soo geeyay ciidana diyaarada dagaal uu geeyay maraakiibu meeshii gaar soo maray tirwaakaas ama markab adiga marsi markaas gacan loo taagay dawladiyo dhan gacan taagay. waa marka ninka professorka Mareykanka uu lahaa القوة العالمية الرابعة وإيران هذا ماشى حرت أود أفراد الدنيا وان صدح وضن بس كأود بدنوين مريكان يروش يتشاينيز فتكاس
meeshaan number 4 u qaroori markay nimanku halkaas mareen haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay Al-Jazeera waxay leedahay xog rasmi ah oo la soo helay waxay sheegayaan 24 diyaaradood nooca loo yaqaano Reaper oo Mareykanku leeyahay in lagu soo riday dagaalkii Iran diyaaradahan noocoodu yahay MQ-9 Reaper ayaa waxay ka mid yihiin diyaaradaha ugu casrisan uguna qaalisan ee Mareykanku uu isticmaalo ciidamadiisa dhinaca sirdoonka waxaana la sheegay in ay door muhiim ah ka soo qaateen howlgallo Mareykanka uu ka soo fuliyay caalamka intiisa kale dagaaladii ugu dambeeyay haddaba Iran ayaa ku luqluqataa la leeyahay oo dhulka soo dhigtay burburisay 24 ka mid ah diyaaradahaasi oo markaa ay dhulka soo dhigtay xog rasmi oo la soo saaray waxba iskama qoraan hay'adaha waaweyn ee warbaahinta wax beena ma qori karaan maxkamada la fuulaa dhibaato laakiin xogtiya la keenay muxuu ku hadlaa macalinka weyn afka juqda gabay 24 diyaaradood MQ-9 la yiraahdaa xabadii 3 milyan oo dollar ay joogtaa kan waa aday 3 milyan ku joogtaa la yiraahdaa soo dir halkaan ku qararamsanayda meesha marka warkaas ka socda xaalku halkaas u maraa dhanka kale taliye ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa war soo saaray wuxuu yiri annaga aysan noo maleynun Venezuela madaxweyne hurda ay habeenkii gurigiisa in la galo iskala soo baxayo laga adeeganayo shidaalkooda la iska qaadanayo annagu nahnu Iraniyiin annaga waxaan nahay dad leeyahay Iraniyiin Venezuela noo maleeyo ninka leeyahay Trump haddana waa sugeynaa waa sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iran waa sugeynaa hadda annaga meesha faataxa lagu ma kala joogo hadduu wax isku hay yimaad u taagay meesha dhabakan waa soo darsadeen haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay taliye ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa wuxuu sheegay annagu Venezuela ma nihin weerar kasta oo nala ku soo qaadana bedelkiisa mid ka adag oo jawaab culus ah ayaan siin doonaa Mareykanka sargaalkan sare waxaa lagu magacaabaa Maxamed Jacfari Asadi al-Ilala wuxuu ku jira ragga ugu sareeya ciidanka ilaalada kacaanka Iran hawshaas marka halkaasi joogtaa waaye wararka kale soo kordhay inta kala maqnay waxaa kamid ah Israa'iil weerar culus ay qaaday Hezbollahina jawaabtooda siisay halka marka waa la isgaraacayaa Israa'iil waxay duqaysay goobo ay ku tilmaantay inay ahaayeen fariisimo ay ku jireen dagaalyahano ka tirsan Hezbollah Hezbollahina waxay yiraahdeen diyaarado daroona oo isqarxinaya inta u qaadanay ayaan maanta dukum daakum ka dhignay saldhigyadooda meesha marka waxa badjoojin leeyahay ma jiraan horada ay kugu sheegay halkaas waa la isgaraacayaa haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arikaas Hezbollah war ay goordhow soo saartay waxay sheegtay inay ku bartilmaameedsatay saldhig ciidamada Mareykanku ay ku lahaayeen koonfurta Lubnaan ee ciidamada Israa'iil ay ku lahaayeen koonfurta Lubnaan iyagoo ku duqeeyay diyaarado droniska saldhigaas waxaa iska lahaa ciidanka Israa'iil haddaba marka waxaa la sheegayaa in ay diyaaradaha daroonka ah oo ay isticmaaleen weeraradaas ay ku qaadeen saldhigyadaas oo halka ay marka ciidanka Israa'iil ay ku weerareen way marka meeshaas iyaduna jugta la isku hayaa haddaba qaybtan waxaynu ku soo qaadanaynaa laba war oo waaweyn oo soo dhacay inta aynu ku jirnay barnaamijka waxaa la sheegayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iran in markaa Bakistaaniyiintu ay ka codsanayaan oo ay weydiisanayaan in bal nimanka Mareykanka meesha jooga oo la fariisto oo arko marka wali go'aan ma gaarina leeyahay laakiin wax kasta waa suuragal inuu la fariisto inuu ka tago oo uu mooska iska aado marka arikaas soo kordhay halkaas ay wax marayaan dhanka kale wararka kale soo kordhay waxaa kamid ah Trump wuxuu sheegay awoodda Iran ay ku soo saarayso diyaaradaha droniska kula 80% waan baabi'inay marka tabar badan ma laha Iran
tabar badan ma lahane gal hawsha markaasaa la iswaraysanaya nimankan celceliska generaaladooda meel walba ka hadlayaan Venezuela manihin ku haye odaga isaguna waa iska booteeraya marka wararkaas waxay ahaayeen kuwii soo kordhay haddii alla idmo barnaamijyada kala soo socda ayaanu ku kala warqaadan doonaa wixii akhbaarada ay yimaada like garay oo share garay barnaamijka hadda cusubtaana subscribe ka iloob youtube ka facebook na follow garay